magaalada Laascaanood waxaa lagu soo bandhigay hubkii waaweynaa ee magaalada lagu garaacay kuwaasi oo la tusinayo beesha caalamka sidoo kale safarka garaadada iyo waliba ujeedada ay safarkaasi ay kala yihiin iyo waliba garaadada baxayo falanqeyn kooban baan ku sameyn doonaa hadii ay biirahdo Puntland waxa ka qabsoontay doorasho hadaba xagee la kala maraya ninkii daniha doorasho waa qabtay balse madax xanuun baa uga dambeeyay waxa kaloo dul istaagi doonaa magaalada Muqdisho waxa ka socdo wax aad loo farxo oo ah in hadda la bilaabay in dawooyinka soo galay dalka in la control dhaqaatiirta imaanayo control in lagu sameeyo maadaama awal isdhaxyaac far badan uu jiray hadda baaritaan iyo howlgallo cusub ya dhankaasna ka bilaaban doono guud ahaanba xaaladahaasi ayaynu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa waxaan ila falanqeyn doono saaxiibkay Gooni oo wixii ay leeyihiin insha Allah ku dari doono Gooni ma hore soo dhaw hadaan ku bilowno safarka garaadadu bal ma hore iyaga aan ku bilowno safarka iyo waliba ujeedada laga leeyahay horta cukaasha waa maasan tahay safarka garaadada qof macaamiishana kamid ah soo weydiiyay wuxuu yiraahday war xagee marayaan garaadadii SSC safarkooda magaalada Muqdisho waxa leenahay safarkii waa diyaar garaadaduna waa bixi doonaan waxaan iska soo xuleen 5 qofood oo kamid ah garaadada laakiin waxaan ku jirin garaadka guud ee SSC garaad jaamac garaad Ali ayaa ka maqan shantooda waxay kala yihiin garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad Cabdirasaaq garaad Soofe garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed Suldaan Mustafa Maxamed Awseed iyo Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi shantaas qofood loo soo xulay inay tagi doonaan waxaana la sheegay in sidoo kale ismada Qaatuma ayaa dhameystiray xubnaha baarlamaanka ee SSC Qaatuma kuwaas oo tiradoodu ay tahay 45 xubnood kuwaas oo lagu dhawaaqayo maalmo kadib dawladda lagu dhisay marka hadii 45 xubnood oo baarlamaan hadii lagu dhawaaqay dawladda meesha ka bilaabatay dawladda federaalka Soomaaliya maxay ula tagayaan maxaas u qorsheysan SSC waa tan la doonayo dadka in loo bidhaamo inay ogaadaan maadaama garaadada ay tagayaan Muqdisho intii loo yeer iskama tagin laakiin ajanda iyagana wataan dawladda ajanda wadataa okay marka waxay codsadeen horta saddex arrin ay wataan garaadada markay gaaraan magaalada Muqdisho waxa loo diyaariyay ciidamo qaas ah oo amnigooda si gooni ah u sugi doono waxa laga yaabaa caasimada Muqdisho 3 milyan bar ayaa ku nool waxa laga yaabaa dad reer Soomaaliland ay taageersan ama inay dhibaato Soomaaliland ay qarash ku bixiso ismada dhibaato loo geysto waxa wasoo laga hortagaa jidadkan oo loo xiri doona rag amniga sugo qaas ah oo qarkood Yurub laga keenay oo madaxweynaha waardiyo ah ayaa waardiyeyn doona garaadada hadii aan taas ka gudubno qorshaha SSC garaadada ay wataan oo la tagi doonaan fila Soomaaliya waxa kamid ah in marka hore horta maamul madax banaan ee Qaatuma leeyahay in lagu dhawaaqo inay ogolaato dawladda federaalka Soomaaliya kuna dhawaaqdo mid labaad in dhaqaalaha beesha caalamku ay bixiso qoondadii ay macnaha Soomaaliya la qaybsan jireen in qoondada gooni loo bixiyo isla markaana lagu wareejiyo dawladda Soomaaliya ay ku wareejiso 45 xubnood ee baarlamaanka noqon doono isla markaana Qaatuma state soo dhisi doono mid saddexaad waxa waay in ciidamo rasmi ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ka socdo in la geeyo magaalada Laascaanood maadaama Qaatuma state hostigi doonto maxalada dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha si toos u hostigi doonto matalan hadda markaan eegno gobolka Gedo kaleeto waa Jubbaland ay hostagtaa ciidamada dawladda ay joogo Jubbaland naftigeeda ciidamada danab iyo kuwa kala joogo oo waxay hostagaan dawladda federaalka Soomaaliya galmudug ay joogan Hirshabelle joogan marka kuwan waxay rabaan xataa Puntland ay joogan oo ciidamada carmo lagu tababaro oo maxalla Puntland lagu dhaxtar baro dawladda askale marka waxay dhahan anagu maadaama dawladda hostagno ciidamo u baahna ciidamadaas marka way codsan doonaan saddexda ajanda ee garaadada SSC ay wataan waa saddexdaas Soomaaliya qorshe ama waxay u diyaarisay ama arrimahaas ay naftikooda ay horkeena doonaan garaadada way jirtaa laakiin inta badan waxaan tiirada saarayna garaadada codsigooda iyo qorshaha ay ka leeyihiin marka garaadada hadii ciidamo la siiyo magaalada Laascaanood la geeyo dawladda federaalka Soomaaliya hostagto baarlamaankooda la dhiso baarlamaanka madaxweyne soo doorto markaas Qaatuma sidaas loogu dhawaaqo horta SSC sida ay rabtay way hirgashay صح Soomaaliland ciidamada joogan ayaga iska tagay mar hadii meesha baarlamaan yimid madaxweynuhu soo socdo dawladda federaalka Soomaaliya garaadada u tageen oo fila Soomaaliya ay tagi doonaan waxa meeshaas SSC ka hortaagan inay maxal maamul madax banaan noqdaan ma jirto dhaqaalaha caalamkana way kala hadleen dawladdu waxay ogolaatay in maxal dhaqaalaha si toos ah ay ku jirto danta u jirto maxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxay leeyihiin shidaalkii meeshaas la isku haystay markaan dawladda ay aad u quldareynaysayo waliba shirkadaha heshiis la soo galay baa la sheegaya shirkadaha heshiiska la galay iyo horta Soomaaliland loo soo galay oo hadda Puntland oo kala ku jirto Jubbaland ku jirto dhankan koonfurta maxalada kulli
mooge ilaa SSC way ku jirtaa marka Soomaaliya dhan horta qandaraaska loo wada galay hadii shidaalka la wada qodana Soomaaliya dhan anfici doona marka SSC qayb ay ka noqon doontaa ceelkan howlhol la yiraahdo oo shidaalka laga helay in waxa ku manaafacaadi doona oo dhaqaalaha ugu badan keeli doona horta waa SSC laakiin dawladda federaalka Soomaaliya danta ugu jirto waxay tahay horta go'aansitaanka nimanka leeyahay Soomaaliya meesha ka baxay arinta go'aansitaanka wixii la dhahay maadaama ay soo aruureen gobolada kale la soo aruuray wixii Maroodijeex waxa isku soo dhamaanayaan hal gobol ama laba gobol isku soo aruurayaan marka maamul madax banaan waa dhamaatay ama dawlad madax banaan waa ka dhamaatay meesha mid la dawlad faa'iideyso waxa waaye maamul ayada hoos tago oo si toos ah ciidamadeeda u tagi doonaan oo markaas ay dhaqaalaha dawladda ku tashanayo iyo wax soo saarka dawladda ku tashanayo ayaa meesha ka soo baxaya calanka Soomaaliya wato وصل مركان أندي دنين محل على KCC كي سومالي سلنا عتاقيين سومالا مدحين حس الشيخ محمد متى يكرو أو لويس ما جين كرو إن لا دبعتيه أم إن محل هذا أن لا أقول إنه كده أي لقي عوا مركا إن SSC هذا حس محمد وتجي دونا وكخد بين دونا بحين نقطة أنت دجان كيسي على الصومالي أنا كتاجن مدحوينها أن دربيدا يا لو حرنا ومرهرة حس محمد سورديس دربيدا لو دجي إيميل كسي تالوين KCC أي لو دجي مركا حس محمد وحكي فايدة دونا دولة المعمول قبلت دولة هوس تجي وعلى الصومالي وطأ أي هالكاس كدلنا دونا بحين كمان نقطة دونا دتك هرمركا الصومالي كشقين دونا نكرا وكاشو هذا وين ما صنت هاي وحيروح عيسى مركا magaalada waxa lagu soo bandhigay hubka ee loo garaacay magaalada ee la soo bandhigay isagan magaalada Calaasacanood waxa lagu soo bandhigay hubkii iyo gantaaladii iyo saanadii military ay ku garaaci jireen waxa ku jiray dhahan qalab laga keenay Djibouti gantaalada ridada dheer oo Djibouti laga keenay BTM ka ku jiro baasuukiyaasha sabanada qoryaha waaweyn jiibka hubka noocyadiisa kala duwan ku nooca artillery-ga maxaa la hoobiyaha RT5 ka loo yaqaan ayaa ku jiro marka ay nooc waxa sheegan intan waa inta ugu yaraad ay soo aruuriyeen laakiin waxay dhahay magaalada dhan waxa ay sheegeen ku barakacay ilaa 250 qofood 50,000 oo qoys ayaa ku barakacay wali meesha 500 oo qoys ay degan dad ay wali degan oo hareeraha magaalada degan oo meel dheer aan gaarin walina magaalada ku tashanayo naf ka raadiyo marka waxay dhaheen dad baa lagu burburiyay lagu barakacay lagu dhibaateeyay lagu duqeeyay 4 sano ciidamada Soomaaliya dhibaato u geysan jireen marka beesha caalamka ayaa la tusinayay waxaan in maxal wixii lagu garaacay magaalada Laascaanood ay tahay waxaan ka mamnuuca in hubkan loo isticmaalo إن مالك ولا وضع مكة أما مالك وحاول اليهود يمرك الأصدقاء ويحلو استعمال له أما قال الله سبحانه الله استعمال مرك وعيوان الحين وعيوان سيد عادي الله استعمال ما هن وواحد مستقبل كأو الموجي لكن واحد الشعب لو رحت لو تلقى لي أما قرير دربي بلوكيت كدس لو تلقى لي ما هنا ده وحن لو قرعي قال الله سبحانه دبات وين أيان دريميان وحش أيان دقاترتي لقى لي وحش أيان إن إسكولات كلا بربري وحش أيان مقالة كلا بر إن كورنت الآن تاي وحكي لا شيء إن دتك الشعب كا لو بقول كنت كون كقحين magaalada Laascaanood ee maanta baahi iyo cunto la'aan iyo waxay ku haysatay biyo la'aan ay ku haysato duleedka magaalada Laascaanood waxay kala sheegeen in 4 saac askarta ciidamada saraakiisha gantaaladu ay ku dhacayaan waxa soo dhan waxa ka dambeeyay maamulka Musabbix Cabdi waxayna sheegeen in hadda wixii ka dambeeya aysan u adkeysan doonin noloxmadaasi isla markaana ay go'aan ku gaareen in dagaal culus ay ku qaadaan ciidamada Soomaaliland muddo 7 barina iska xorayaan gooja caday deegaanada ku dhow ilaa Samakaabna ay ka saar doonaan ciidamada Soomaaliland dowlad goboleedka Puntland waxa ka dhacday doorasho dimuqraadi ah taasi oo shacabku ay codeynayeen haddaba xageebay doorashadu ay maraysaa iyo waliba codkii dadka shacabka ay dhibteen oo ah golaha deegaanka markana aan ku soo noqdo gooni iyo waliba natiijada la kala helay عكاشة ورت وحوم ليس سيد عبد الله الدين وحكنا به مامل قبلات كوري مامل دولة فيرق سومالي هستو قف يعد سمايا أي نقطة وحوين أي أرداس أو نقطة أو دتك تاريخ لو بدي يصير أي نقطة ما دام عالم كنا تاجري إن دتك سياسيين تي سوماليات أو كم دي محمد عبد الله فرماجي حسن على غير يسيتوا صوت تاجرين سلام كان السود وين أبو غاديين قابك وحودا